jacayl. Zamankan aan hadda ku sugannahay wax walba waa isbedeleen, laga yaabee in ilbuxu iyo tiknoolajiyadu sabab u yihiin. Haddaba waa maxay jacayl? Jacaylku waa inaad dareento dareemo aan kuu horrayn, yacnii hor alla ah, welibana aad dhexda ka gasho farxad aan caadi ahayn, adigooba ismooda inaad hantiday caalamka oo idil. sababta arrintaasi ayaa ah in qalbigaagu dhex degay qalbiga qof kale, caqligaaguna wuxuu kuu sawirayaa inaad heshay qofkii aad ku riyoon jirtay maalin walba. sidaasi darteed wax weliba ayaa kula fudud, arrin welibana sahal ayay u muuqataa. calaamadaha jacaylka. sideed ku garan kartaa in jacaylku asiibay? su'aashan waxaa isweydiinaya qof weliba oo dareemo la yaab leh oo ku soo kordha jidhkiisa. haddaba iiddaa hadda aan kaaga jawaabay su'aashan. markaad eegayso gabar ama gabaray aad eegayso wiil, misena aad dareento garaaca wadnahaaga oo saa'idaya, welibana u badanaya si aan nidaam ahayn ama isku dhexyaaca, sidoo kale caloosha ayaad ka dareemi doontaa shay u eg lalabo oo kale, balse maahan arrintu mid dhib leh ama mushkilad soo korortay, balse waa arrin qurxoon oo timid. waxaad kaloo dareemi doontaa in qofkaasi wakhti badan aad ka fikirto, saacadihii hurdadaada ayaa yaraan doona, farxad aan caadi ahayn ayaad dareemi doontaa marka aad ka agdhowdahay qofkaasi. mararka qaar marka la joogo meelaha lagu sheekaysto, qofkaasi wanaaggiisa oo keliya ayaad ka sheekaysaa oo ka hadashaa, oo isaga unbaa diiradda kuu saaran. waxaad jeceshahay inuu farxad ku noolaado, misena uu baraaro ku jiro mar weliba. marnaba uma ogolid inuu dhibaato galo ama aad aragto wax dhibaya. halkan markaad marayso waxaad ogaataa inuu jacaylku galay, balse jacaylku waa heerar kala duwan, keliya bilowgii unbaad joogtaa. haddaba halkan aan kugu soo bandhigo heerarka jacaylka iyo qaabka loo qaybiyo. kan ugu horreeya, luuqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa almawaddatu waalhawaa. marka aan ka sheekaynayno qaybtan la yidhaahdo mawaddada ama galgacaylka af soomaaliga lagu yidhaahdo, darajadan waxay imaataa guurka kadib. jacaylka dhabta ahna waxaa waajib oo qasaba inuu ku dhammaado guur. waxyaabaha kale ee la sheegana run ahaantii jacayl maahan, waa aniga sidaan u arko. wakhtigu markuu isbeddelo, ayaamo badan socdaanna, jacaylku wuxuu isku beddelaa mawaddo iyo naxariis kana dhexaysa labada qof ee isqabta, ama xaaska iyo ninkeeda ama ninka iyo xaaskiisa. wakhti badan kadib iyo tijaabooyin badanoo laisla soo arkay, galgacaylkii ayaa waxa uu isku beddelayaa mid camimaya jidhka qofka oo idil, iyadoona qof weliba qofka kale ku fikir noqon doono, kadibna ay noqon doonaan dad xaalad wadaag ah oo waxyaabo badan iskaga eg. waxaa jira darajo kale oo jacaylka ah oo lagu magacaabo assabaabah ama dhallinyaraysi. run ahaantii dad badan ayaa isweydiinaya darajadan maxay tahay. miyuu jacaylku ku dhammaadaa xaalad loo yaqaano alhawaa? run ahaantii maya. darajada ku xigta ayaa ah darajada dhallinyaranimada. darajadan waxay imaataa markii labada qof oo isqabta ay aad u weynaato da'doodu, iyadoo marka marxaladdan la joogo labada qof ee isqabta haddana da'doodu tahay midaadu weyn, ay u dhaqmi doonaan sida laba dhallinyaro ah oo isjecel oo kale. dad badan ayaa markay arkaanna la yaabi doona, sababtoo ah arrintan waa mid dhif iyo qaliilah. marxalad kale oo jacaylku leeyahay ayaa jirta oo lagu magacaabo al-cishq. dhallinyaranimaysiga kadib waxaa imaanaysa darajada cishqiga la dhaho. alla maxay tahay marxalad aad u qurux badan. labada qof ee isjecel markan waxay noqonayaan sida laba cunug oo yaryar oo kale. wax dana iyo cayaara kama dhexayso, balse qalbi ahaan ayay mar kasta isku haystaan, oo meel mid kale kama aadi karo midka kale. mar weliba way isdaa'imaan, way isla joogaan, way isla qoslaan, wayna isla farxaan, yacnii kalama faaruqaan marnaba. waxaa kaloo ka mida darajooyinka jacaylku gaaro qayb lagu magacaabo alhuyaam ama beer dilaacshe. waa xilli labada qof ay isku waalanayaan, iyadoona midba midka kale haddii uu waayo uu halis gelin karo noloshiisa, isagoo laga yaabo inuu ku kaco waxyaabo halisa oo naftiisa xitaa uu ku weyn karo. taasina waxaa sabab u ah dareenka saa'idka ah ee galgacaylka ah ee qofkani uu u qabo qofka kale. haddaba intaasi waa noocyada iyo darajooyinka jacaylka. waad ku mahadsan tahay daawashada.